السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم أصحابتا أن جعلها ميل والبو آد جوجتان. waxaan rabaa maantay inaan isla fiirino halkeen ka heli karnaa farxad iyo reereen iyo in qalbigayna uu dego. qof kasta oo naga mid ah meel walba oo caalamka ka joogo wuxuu raadinayaa farxad. halkeen farxad ka helaa, halkeen nolol fiican ka helaa. marka waxaan isla fiiri doonaa halka farxad ay taalo amba halkeen farxad ka heli karnaa. tusaale yar haddaan idin siiyo, qofka joogo baadiya meel duur ah, geel dhaqdo, xoolo dhaqdo, wuxuu ku fikirayaa amba aragtidiisu tahay haddii aad tuuladan amba baadiyahan ka tagto ee meel tuula aad tagto, waxaad ku noolaa kartaa farxad, reereen, nololtan ka fiican. kan tuuladaas joogana sidoo kale wuxuu aaminsan yahay haddaa meel magaalaa tegi lahayd waxaad heli lahayd farxad, nolol fiican, nololtan ka duwan. kan magaalada jooga wuxuu aaminsan yahay haddaad tegi lahayd magaalo weyn sidii muqdisho oo kale amba kismaayo, baydhabo, boosaaso, waxaad dareemi lahayd farxadtan ka fiican, nolol fiican, nolol raaxa leh. kuwa magaalooyinkaas jooga waxay aaminsan yihiin haddaa banaanka u baxdo oo Nairobi tagto waxaa heli doontaa farxad dhammaystiran. muqdisho farxad ma taalo, baydhabo ma taalo, laakiin haddaa Nairobi tagto at least nolol muqdisho tan taala ka fiican ayaa heli doontaa. kuwa Nairobi joogo amba haddaa Nairobi tagto xataa waxaa leedahay haddaan Yurub tegi lahay noloshan Afrika nolol fiican ma ahan, nolol raaxale ma ahan, nolol ka fiican ayaan ku noolaa lahay. kuwa Yurub jooga ayagana waxay aaminsan yihiin haddaa America derbi ka boodo, Canada tagto, waxaa dareemi lahayd farxad, reereen, nolosha Yurub nolol ka fiican. taas cagsigeeda kuwa America jooga, kuwa Canada jooga, kuwa Yurub jooga waxay aaminsan yihiin haddaa wadankaaga u laaba lahayd, baadiya awowgaa kasoo jeeda aad tegi lahayd, guri fiican ka dhisa lahayd, waxaad dareemi lahayd farxad, nasiino. marka isku soo wada duub, marka ma jirto meel qofka bini-aadinka uu ku dareemayo farxad dhammaystiran. soomaalidayna waxaa la dhahaa waa reer guuraa, marba meelay u socdaan, marba meelay aadaan. waxay meelahaasoo dhan u aadayaanna waxaa weeye in ay farxad iyo nolol fiican ay raadinayaan. nolol fiican ilaahay subxaanahu watacaala horta laga helaa. ilaahay subxaanahu watacaala watuu lahaa aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub. ilaahay subxaanahu watacaala xuskiisa iyo dikrigiisa ayaa horta laga helaa in qalbigu kuu qaboobo, xasilooni. meeshaad joogto baadiyo joog, tuulo joog, magaalo joog, America joog, Canada joog, Australia joog, Yurub joog, haddii qalbigaagu ou iimaankaagu daciifo amba dikriga ilaahay ka daciifo, farxad iyo reerinta aad raadinaysid ma helaysid. the only way farxad lagu heli karo, naxariis lagu heli karo, nolol fiican lagu heli karo waa ilaahay subxaanahu watacaala xarigiisa oon qabsano. ilaahay subxaanahu watacaala nabi maxamed uu ku dhahay wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin. ilaa aad ka dhimato ilaahay subxaanahu watacaala xus. yaa ayuha aladiina aamanuu udkuru llaha dikran kasiira. ilaahay subxaanahu watacaala hanaga dhigo kuwa dikriga ilaahay subxaanahu watacaala qaato, carabkoodu uuna ka go-in xuska ilaahay. marka soomaaliyay ma jirto meel walba kan hadda ku fikirayo inuu Nairobi yimaado, kan ku fikirayo inuu Yurub aado, kan inuu America aado, kan inuu Canada aado. the only way qalbigaaga uu ku xasilayo waa ilaahay subxaanahu watacaala xarigiisa inaad qabsato, si daacad u qabsato ilaahay subxaanahu watacaala. markaas farxad, reereen, wixii adduunya aakhiraba inaad liibaanto amba guuleysato ayaa u badan tahay. ilaahay subxaanahu watacaala waana laga rajeynaa. laakiin qurbaha amba meel kasta ood ku haminayso
farxadda amaanta haysato mid ka fiican ma ka heli doontid. marka sidaa darteed ilaahay subxaanahu watacaala aan isku dhiibno. ilaahay bil ramadaan lagu jiro, ilaahay subxaanahu watacaala cibaadadaha naga aqbalo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.